taasaa keentay ninkaas odayga markaan si fiican ugu sharaxnay dhaqanka Soomaalida iyo waxaan higsanayno iyo waxaan doonayno waa tuu safar galay uu yiri Muqdisho Soomaaliya maaha Soomaaliyana Muqdisho maaha arrintaas arrin aan ka caroonay ahayd oo aan wanaagsanayn oo sii xoojinaysa runtii difference-ga farqiga u dhaxeeya dawladda dhexe ama dawladda federaalka iyo dawladda goboleedyada haddaba intaas waxaa ka dambeeya hadalkayaan kusoo gabagabeynaya taas intaas waa macluumaadkii guud iyo waxa ummadda ay naga sugayso oo ah annaga in laga sugaayo inaan dadkeenna isu keenno koow annaga aan iska bilaawno dhexdeenna wax alla wixii farqiga oo nagu kala dhex jira inaan annaga dhexdeenna iska daaweyno iyadoo ay saas tahay yaa waxaa maqasheen wax la yidhahda mooshin oo qayb ka mid ah khilaafaadkan haysta mooshinkaasi wuxuu ahaa runtii mid xoogaa yar ummadda Soomaaliyeed argagax geliyay annagoo dhanaan runtii aan la yaabnay inkastoo hadda meel fiican aan taagannahay oo aan ka soo gudubnay oo sidii anigu aan sheegayo ahayd annaga dhexdeena inaan ka heshiinayno wax walbaba oo dhexdeena yaalla kaftanka waa tanaa marka kaftanka meeshaana gelaysaa gudoomiyaha markuu qabtay yaan soo wacay gudoomiyaha kaftameena waxaan gudoomiye waxaan maqlay mooshin baa la qabtay see wax yihiin markaasuu yiri waa hor yaalaa mooshinka waxaan ku yiri see u egyahay wuxuu yiri bal aan kugu soo celiyo warqadihii saas u rogay waa ugu soo celiyo wuxuu yiri numberkaas weey oo yaa ka dambeeya waxaa ka dambeeyo dad waalaha ah oo la yiraahdo qabyo oo waxaan yiri qabyada isla ogeyn waa qabyo waxaan ku yiri bal fiiri qabyo waxaan ku ogeyn wax walba haaf inay uga tagaane bal fiiri hadduu mooshinka dhan yahay in kale dib uu fiiriyay wuxuu arkay saxiixiyo la saxiixay 2017 tuhunka la qabana uu yahay dhamaadka 2018 waxaan ku yiri marka haddee see isu waafaqaysaa wuxuu yiri waxay arkayeen wax soo socda sanadka bacdi waxaan ku yiri khalad kalma ku jiraa waa isla ognahay waxa laga yaabaa qabyo badan meesha ku jirtay waa fiiri wuxuu yiri saxiixa waxa ka maqan dateski oo waxaan ku yiri see dateski qofku uu ku iloobi hadduu qofka saxiixay see ku iloobi waqtiga uu saxiixay waxaan ku yiri haye maxaa kale oo ku jira wuxuu yiri dad kale oo waxa jira oo xanuunsan oo dibadaha jira oo aan ka warqabin waxaan ku yiri marka waayahay gudoomiye maxay tahay waxaan see wax u jiraan motive muxuu yahay maxaa laga danleeyahay waxaan ilaa waaba sheegtay waa qabye wuxuu yiri hore wuxuu yiraahdeen qabye ninkeeda dhameystira waxaan ku yiri waayahay waa dhabi qabye ninkeeda dhameystireen taas 2016 soo ma ahayn wuxuu yiri maya waa 2019 waayahay maxay rabaan marka ma weydiis waa weydiiyo yiri waxay rabaan waxaa ka mid ah guddiga hanti soo celinta in lagu daro ay iyagu maamulaan inay ka shaqeeyaan soo dhawaanshaha shacabka iyo dawladda inay dhamaystir ku sameeyaan wax alla wixii heshiisyo hore u jiray in maxaan ku rahdaa kanaalkan sheegay ayaan dhaweyd oo wabi ka soo fatahay in la furo beerta loo daayo waxay rabaan uu yiri inay xoojiyaan ama ka shaqeeyaan xoojinta hufnaanta dhaqaalaha waxay rabaan uu yiri in ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan mushaar bixinta tan ugu dambaysa waxay rabaan uu yiri inay sharafka ummadda Soomaaliyeed soo celiyaan waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh